بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخه وتضبط بيش السفر كون أفر بغل أفرتني أفر هجري ما نترو وما نسبته وحكور بحنا إن هورق الله أي مجاهدين تفوليين ساعديه لصور دافي هورق كوباد waxay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Diinsoor ee wilaayada Bay. Weerar buu ahaa lala beegsaday ciidanka Itoobiya ee halka ku sugan. Ciidanka xabashida Itoobiya waxa ka soo gaaray weerarka mujaahidiintu fuliyeen dhimasho iyo dhaawac. Howlgalka labaad waxa lala eegtay ciidanka Burundi, waxaana lala eegtay laba goobood oo ay ka fadhiyeen degmada Balcad iyo deegaanka Biyacad. 5 askari ayaana lagu dhaawacay oo Burundi howlgalkaas. Howlgalka saddexaad mujaahidiintu waxay ka fuliyeen wilaayada Shabeellada Hoose, wuxuuna ahaa kamiin lala eegtay baabuur afar ah booyada ah oo shidaal u siday garoonka Balidoogle oo ah xarun ay Mareykanku ku leeyihiin halkaas. Baabuurtaas afarta ah markii ay marayeen deegaanka leeyahay Xaawa Cabdi oo ah deegaan u dhaxeeya magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa mujaahidiintu weerar culus ku ekeeyeen 3 gaari oo booyadii shidaalka waday halka ayaa lagu gubay. hal midahuna waxay u cararna xagga xamar. Ilaahay baa ku mahadsan. Weerarka afraad oo mujaahidiintu fuliyeen wuxuu ka dhacay Jubbada Hoose, waxaana lala eegtay weerarkaas duqayn buu ahaa deegaanka leeyahay Cabdilla Biroole fariisin ay ku leeyihiin ciidamada Kenya. halkaana waxaa lagu dilay oo duqayntaa ku dhimatay 4 askari waa ku dhinteen, 9 kalena waa lagu dhaawacay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala awalan wa aakhiran u mahad celinaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mujaahidiinta siiyey gacanta sare, cadowga ilaahayna halkaas waxa weeyaan ku duleeyey. ilaahay baana ku mahadsan. intaas kadib annagu haddii aan nahay ciidanka xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan har iyo hameen u taagannahay kulaylka iyo dhaxanta ugu dulqaadanaynaa, dagaalka cadowga iyo rasaastiisa ugu heelannahay. waa in ilaahay diintiisa aan ku difaacno, waa inaan dalka muslimiinta ee ay gaaladu gumaysanayso ka xorayno, waa in shareecada islaamka dalka iyo dadka lagu dhaqo, waa in kelimada ilaahay kor ahaato, kelimada gaaladuna hoos ahaato. dagaalka aan cadowga kula jirro heerar kala duwan buu soo maray. mar wuxuu cadowgu adeegsanayay maleeshiyaad shahaada la dirir ah, waana ka adkaanay maleeshiyaadkaas ilaahay fadligii. cadowgu wuxuu keenay ciidanka militariga xabashida Itoobiya, ayagana dagaal dheer oo aan la gallay kadib maalin cad waatii ay isaga baxeen dalka iyagoo Muqdisho ilaa Doolow lug uga baxay. kufaarta amisom isugu yeerta ayay keeneen. dagaal baan la galnay, xeryahooda ayaan ku soo oodnay, halkaas oon maalinba xero ugu dhacno kuna gumaadno gaalada macatablayda ah. Maraykan baa furinta hore soo galay, askartiisa buu marba mid meydkiisa ka qaatay fagaara, wuxuuna ku soo ururay duqaymo cirka ah. cadowgaas aan idiin sheegnay maanta waa jaban yahay. maalin uu ka liito kana tabardaran yahay ma laha. jabka militari waxaa u sii dheer kan dhaqaale, muraal iyo siyaasi. sidaa daraaddeed cadowgu wuxuu mar walba tijaabiyaa farsamo uu isleeyahay waad ku fushan kartaa hagardaamooyinka uu la damacsan yahay dadka mujaahidiinta ah. farsamooyinkaas waxaa ka mid ah inuu maleeshiyaad beeleed hubeeyo, magacyo kala duwanna u bixiyo, kadibna uu adeegsado dagaalka shareeca la dirirka ah ee uu wado. waa farsamo duug ah oo uu 100 jeer soo tijaabiyey, dhammaanna uu ku soo fashilmay. haddaba waxaan dhammaan qabaa'ilka Soomaaliyeed u sheegaynaa, annagu duulaan kuma nihin reer gaar ah, deegaan gaar ah. raggaas waxaan nahay dhiiggooda u huray sidii aan gaaladaas dalka uga saari lahayn, shareecaduna u talin lahayd. reer walba, jufo walba iyo qoys walba oo go'aansada inuu cadowgaa safkiisa biiriyo, hubkana u qaatay inuu la dagaalamo mujaahidiinta, garabna u noqdo gaaladaas dalka iyo diinta ku soo duushay, xukunka ilaahay ee kitaabka ku qoran waa cadiya. qof kastana waa yaqaan waa ka dheragsan yahay. qaala tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahu minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin.
oo macnaheedu yahay qofkii yuhuud iyo nasaare la garab iyo gaashaan noqda ayagaa isxige qofkii la garab iyo gaashaan noqda ayagu ka mid yahay ayagu ku xugun yahay ilaahayna ma hanuuniyo qoom gaala ah oo gardaran qof kasta oo cadowgaa soo raaca asagu noola mid yahay magaciisu muhiim nooma aha ama macawisley ha loo bixiyo ama shaatiley ha loo baxsho qofkii gaaladaas iyo maamuladaas riddada ah soo raaca iyaga ayuu ku xugun yahay waxaan ognahay reeraha uu cadowgu u soo bandhigay mashruuca shareeca la dirirka ah waxaan ognahay kuwa iska diiday waxaan ognahay kuwa qaatay waxaan ognahay meesha qorshahaas lagu abaabulayo waxaan ognahay siyaasiyiinta riddada ah ee abaabulaysa waxaan ognahay odayaasha ku lugta leh waxaan ognahay kuwa dhaqaalaha ku bixinaya waxaan leennahay ka jooga oo ka toobad keena ha noqonina xaaba ay gaaladu ku shiddo colaadda ay ku hurinayso dalkan soomaaliyeed ee muslimka ah allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warsuqna ijtinaabah wabilaahi towfiiq